maaragtay aad joogtay wadamadanna waa adag tahay si aad uga hadasho maaragtay Soomaaliga saxda ahaa maxamed soo koob insha Allah qad kala gali doona insha Allah waxaan walaalkay doonayay inaan yar xasuusiyo inaynan qalad ka fahmin oo waliba aan oran lahaa inay ay daruuri tahay in waxa loo maleynaya intii halkan fadhida ugu yaraan 3 af baynu ku hadalnaa sax ya arrinkaas waa arrin muhiim ah ya waana accomplishment weyn inaynu aragna maaha af kelmadahan aynu isticmaalayno dhibaato muhiimadu waxa weeyaan nuxurka Soomaaliga inaynu fahanno kelmado badan waxa jira xataa af Ingiriis ah aan Soomaaliga ma aragto ku jira ana mar waxa dhici karta markaad wax fasilayso aanay kuuga dhadhamayn sax laakiin hadii waxaanu ka hadlaynaa waa communication caruurtii ma doonayna inay wada gabayaan noqdaan ya inkastoo ay ficnaan lahayd insha Allah halkaas ay muskilad laakiin waxa muhiim ah bal hadda inuu xidhiidh ka dhaxeeyo waalidkii iyo ma garanaysaa iyo caruurtii waayo xidhiidh la'aantani dhibaatadan ay keenayso ayaa waxyaalo badan jabin karta moogta oo damage weyn ku keeni karta marmar aan ku soo koobay waxa dhacda haddaynu xataa xagga kale eegno waxa jira caruuro badan oo waalidkoodu turjuma oo markaa sheeko yar oo kaaban haddaan idiin sheego waxa jirtay inaan iskuulkii dibidhac badan kaga yimi ka waalidkii iskuulkii tagay markaa isagii macallinkii uu kana turjumaanayay markuu macallinku yiraahdo hooyadaa u sheeg ama waalidkaa u sheeg inaad levelkan aad joogtaa inaanu level fiican ahayn oo arrin kale farisi wuxuu ku leeyahay intuu waalidkii ugu gooran jiray waxay leeyihiin khatar baa wanaagsan baad soo qabatay marka waa dhibaatooyinka sidii ay kaga bixi lahayd waa maasantahay ayaa muhiim oo ku soo noqon doona insha Allah waxaad wada telefoonka qadka in maaragtay dadka ay aad uga buuxaan insha Allah bal waxaanu gali doonaa qad telefoon oo kale hello assalamu alaykum ku soo dhawaad barnaamijka codka Soomaaliyeed hello assalamu alaykum ku soo dhawaad barnaamijka codka Soomaaliyeed أول ما يعاقي مشهد كسر لسه. أنا waxaan ka soo hadlayaa London aan ka soo hadlayaa. Magacaaga? Abukar ayaa la yiraahdaa. Okay Abukar fikrada soo koob insha Allah. Fikirkayga waxa waaye horta waa luqadda Soomaaliga adduunyada luqad walba waa qolo walba waa hibo Ilaahay uu siiyay waaye. Sax. Hibada uu Ilaahay siiyayna waxa waaye hadii ay ummadda ay dhoori weydeen waxa waaye dhibaatadeeda waaye. Waxa loo baahan yahay caruurta naftirkooda marka waalidka ay markay wada hadlayaan markuu af Soomaaliga aad kula hadlaysid oo arko Ingiriis walba ku hadlo laakiin af Soomaali markaad ugu jawaabaysid marka dad wuxuu ogaanayaa luqad muhiim ah inay tahay يعني أبو كراديك أقولي يا عروت في الصومالي مكروه شيء مركا بس في إنجليز بس أنا في إنجليز كل ما واحد لا في الصومالي أو كل واحد لا في الصومالي أنا شفت أو كل واحد لا مركا عرب إنجليزي كويتي أنا في الصومالي أنا وجوابه في الصومالي أنا كويتي أنا مركا في الصومالي في عندك هلا أنا دعوت هذا في الصومالي في عندك هلا يعني مركا محل كرات الوالدين تكره وكذا وأنا تلفزيون كيونيفرسال والدين تكره تحن كل الطليلة هاي الدنيا هذا خرمر أي قارت ولي هذا يوروب وردن جامعة هودي عيال لقدقوها لقد في الصومالي لقدقوها يحوق يسارين إن لقد الصومالي وحوائي نقطه قيب مهمة ولقد دكتيني نقطه ما دام الدكي أجانب ككلتي برنايا إني عرورتوده يحوق يساران سي لقد يكبر الهاين خاصة وحن لاحي حلق عرورته يجانسك إليهن إنه والدك ساعدت في عن إلا فريستان إلا شاكستان ما دام إلا شاكستان الصومالي كل شاكستان عنقو حقانا يا مركز إنه يهي قف حتى واحد بريكا مالي حتى ما يعطي اسمه ده وحقانا إنه يهي قف صومالي aad baad u mahadsan tahay Abukar sida aad maaragtay fikradaada u soo gudbisay aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo ahayd waalidiinta Abukar wuxuu kula taliyay inay markay ay waalidiinta guriga joogaan ay caruurtooda ay af Ingiriis ku hadlaan bal waalidkii inuu isku dayo inuu caruurtaasi Soomaali ugu jawaabo ama Soomaaliga uu kula hadlo insha Allah qadka xiga ayaanu qaban doonaa insha Allah hello assalamu alaykum ku soo dhawaad barnaamijka codka Soomaaliyeed وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مقصود؟ ها ولا واكم مغلنا مقعي ماشهد كسر الله فكرة هذا نسوكم إن شاء الله. هذا هو إلفورد حافظ إلفورد مكان لندن. مقعي؟ عبد الكريم حاجز. أوكي عبد الكريم سوكم فكرة هذا. أنا ورثت ما شاء الله أدو بسنتين برنامج كسوزان. هذا مذا. مركب حنا ربي أنا شيء إن مركز واحد أدل صار الكوميونيتي يو هو أبيال كان هو ينكف. طبعا ما هو ده حيسات. وأنا أعرف مهم هذا صار سوقاته. waxaan maalinka ahay iskuulada ku yaal xaafadda mid kamid ah iskuul waxay u gudiyeen caruurta Soomaaliya la baro ilaa GCSE ay ku qaataan
laakiin waxaan tusaale ahaan usoo qaadanaya inaan goobjoog ahay in markuu usbuuc socday iskuulka waxaa dhigta ugu yaraan 50 arday oo Soomaali ah marka la yiraahdo lasoo buuxiyo yaa ogol in Soomaali la baro waxaan helnay 7 qof oo kaliya marka usbuuc wadnayna 7 qof bedesha 2 qof ilaa ay ka dhamaadeen yiraahdaan waqti ma hayno marka waalidiinta aan dhihi lahaa inay ka faa'iideystaan aan waddanka fursado badan ayaa jira in laga faa'iideysto صح marka waa taas ku soo cabdikariin aad baad u mahadsan tahay oo cabdikariin weliba fikradu soo gudbiyay oo ahayd inaad moodo waalidiintii maanta Soomaaliyeed qaarkood inaysan caruurtoodaba u rabin inay luqadda Soomaaliyeed u bartaan ama iskoolada ay Soomaaliga geeyaan bal Abuukar Zakaran maaragtay siinaya ayadan arintaas waayo macallin kale oo hore xataa aan la kulmay aniga wuxuu ugu yeeray markaad caruurtaasi مع العيسى أما عيسى لمبات سجل في جسوا وحنا شاقي إن عروت الصومالية بركي إسكول كي مادان أول يرى هذا اللغات الصومالية واللغة الدرا واحد ولا يقارك ضد كبدنا ما يبين وحرت عروتي إن مارتي برتان GCSE قديم إنجليش كي أما حسابتي ما حاول بسبب وأنا قلت فأنا واحد عروته ربط معها أنا وعروته أنت أيهن لحية تبصن أنت كهسيان والدك كمسؤولة بسيشن كان والدك أجاري ولا لا تشن كرا عروته والفكر كذا ولا ويدين كرا لكن ممكن عبد الكريم واحد وشاقي بركت كلمة نون وعرقي والدك إنا نربين معنا هذا معها والدك إنا ديدين معها waxaa jirta wax la yiraahdo isku xiraansho la'aan hadii aad u jeedisid fikirkii intaad baaranka meeting u yeertid hadda fursad waxaynu leenahay jirta oo nolol u galiya luqadii kala imaada hadda way jirtaa cilada tan u sheegay waxa laga yaabaa konton qof meeshaad ka sugaysid in 10 qof ku timaado 10kii qof kuma iskuulkii kama la dhicin kartid 10 qof ii facilitate gareeyo oo lacagteedii bixiyo oo galaaska bixiyo waxa leeyahay real baahi ma jirto haddayna idinkii 300 iskuulka ku jooga 10 qof kaliya haday luqadeedin ka rabto ma sameynana le waa in at least majority of the umada waa in la yimaadaan marka again waxay ku soo noqonaysaa waalidka inay ahaadaan kuwa isku duuban oo ay fikirkan soo waa maasantahay Abuukar Zaka waxaan u iman doonaa idinkoo soo koobayo taladii ugu dambeysay maxay waalidiinta Soomaaliyeed qaban karaan sidee caruurtooda maaragta dhaqankooda u bari karaan oo Soomaaligeena ugu soo celin karaan soo koob insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim horta walaalkeena macallinka arrin aad muhiim u kaga dhawaajiyay horta laba arrimood oo aad muhiim ah uu qaray oo aan ku soo koobi doono insha Allah arrinkii arrinkan inuu kulligeena naga wada dhaxeeyo ayaa muhiim ah oo aan iska ilaalino bal hadaynaanu cid eedayno aynu fahamnana moogtay badan aynu ku dhex jirnaa sidaan ugu dabaalan lahayn waqtigeeda aynu falowgeeda qabanaa muhiim ah talabaad arrinkii kale uu kaga dhawaajiyay kulligeen aynu soo wada aragnay aniguba shaahidan aan mararka qaarkood aan ka soo noqday ahaa marka loo helo facilities loogu dhigo af Soomaaliga dadkeeni ay ka faa'iideysan waayaan arrinkaas waa very serious waalidiintana waxaan oranayaa afkeenan waxa ku xidhan dhaqankii baa ku xidhan waxa ku xidhan ila diintii baa ku xidhan karto haddaad doonayso ilmihii inaad xiriir aad la yeelato oo ilmihii wax ka dhageysto waa inay isu dhawaadaan waalidkii iyo ilmihii waa inay helaan wax isku soo xidha afku door weyn buu ka qaataa haddii ilmihii aanad xiriir la yeelan karin oo aanad la hadli karin waxa muhiim markaa in ay in dalmo ma ogtay xiriirkaas hadduu lumana waxa lumaya ma ogtay wixii kale badnaa ku xidhnaan caawo dhan ka hadlayna marka waxa muhiim in la fahmo oo marka fursadaas oo kale haday timaado aan dhinaca la eegin toos loo galo laga faa'iideysto aad baad u mahadsantahay Maxamed Zakariya waxa ku soo gabagabeynaa gabadhii ugu dambeysay Muna Ilaahay xafida iyadii carruurta Soomaaliyeed taas waan u hambalyeynaya waalidkeed runtii ku dadaalay inay يعني وقت كيان لقطة أنا هنقرأ إن سوماليدا حافظها أي دقيقين يسوي مادام والدينته أي فران اسكولات خاصة اسكولات كهذا أي حافظها أي دكتان وحجر مالنتا ويكند كوحلو يقانو أما سبت ذي حدها وفراق وحبل لكم برتو إني هلان ضد الوقت ذا أوديكا تاسم كسوق أوران كل تلنا ضدك أبدا ما سنتين دمان به إن سيد أدمارتي هذه قرب برنامج كهذا قبقاتان إن وحنو عاو برنامج كنا كجهل لني إن dhaqanka iyo luqadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada maanta Soomaaliyeed ee ku sugan qurbaha waana barnaamijkii waxaanu joognaa gabagabadiisii oo intan caawa ayuu maaragtay inuu leeyahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii
nala soo xiriiray iyo dadkii igala qayb qaatay barnaamijka iyo sidoo kale farsamayaqaanada telefishinka Universal ugu horeeyo Cabdalla Umar Axmed Daahir iyo Cabdifataax Yare dhammaanteedba iyo aniga Nabiil Xasan Uurahba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh